bishii Juulaay ee sanadka 2016 waxaa soo baxay wararka sheegaya in Kuuriyada Koonfureed ay dhamaystirtay samaynta gantaal xambaari kara madaxyada nukliyeerka iyadoo gacan ka helaysa dalka Mareykanka markii uu warkaasi warbaahinta caalamka galayna waxaa cadha hadlay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo sheegay in dalka jaarkooda ee Kuuriyada Koonfureed ay dambaska ka dhigi karaan dhab ahaantiina waxaa laga wada dhirigsan yahay in tani aan ahayn markii koowaad ee Kim Jong Un oo waddan kale ugu hanjabo weerar dhanka nukliyeerka iyadoo sidoo kalena isla maalmaha Kuuriyada Waqooyi ku dhawaaqday inay farta ka qaaday samaynta gantaalka waridada dheer ah oo gaari kara dalka Mareykanka isla markaana waxyeello geysan kara haddaba barnaamijkeena xogta daahsoon waxaynu ku eegaynaa haddii ay Kuuriyada Waqooyi awood u leedahay xilligan inay qaado weerar dhanka nukliyeerka sanadkii 2003 ayay ahayd markii ay Kuuriyada Waqooyi ka baxday heshiiskii qaramada midoobay ee dhigayay xayiraadda hubka kiimikada wixii inta ka dambeeyayna Kuuriyada Waqooyi waxay ka talaabsatay dhammaan waxa loo yaqaan qawaaniinta caalamiga iyadoo cagta saartay dhabaha samaysashada dhammaan noocyada hubka wax gumaada iyadoo tijaabadii u horeysay ee nukliyeer ahna samaysay sanadkii 2006 xilliga ay qaramada midoobay soo saartay warbixin qaab qarsoodi ah loo ururiyay oo sheegaysay inay suuragal tahay in Kuuriyada Waqooyi horumarisay ilaa 15 madax oo gumucyada nukliyeerka iyadoo ilaa sanadka 2020 kana la saadaalinayo inay gumucyada nukliyeerka ee dalkaasi gaarsiin karaan ilaa 100 madax dhaqaaqa quwadda nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi samaysay waxay dalka Mareykanka ku riday warwar ku saabsan in dalkaasi uu duqeyn karo dalalka la jaarka midkood amaba inay samaysan karaan Kuuriyada Waqooyi gantaal soo gaari kara dalka Mareykanka oo xambaari kara madax nukliyeera daraasad ay dhawaan samaysay majalada The Economist ayaa lagu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay duqeyn karto oo baabi'in karto magaalooyin badan oo waaweyn xilli uu safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyi jiray Kuuriyada Waqooyi uu ka digay khatarta ka iman karta dalkaasi iyo inaan la yareysanin awoodda ay military ahaan leeyihiin Kuuriyada Waqooyi isla markaana aan hoos loo dhigin warbixinaha sheegaya in dalkaasi isticmaali karo madaxyo nukliyeera dhanka kalena sida loo yahay Kuuriyada Waqooyi waxay aad u horumarisay hanaanka dhufaysyada ciidamada iyo godadka dhulka hoostiisa ee masaafada dheer dhinac kasta loo qaadayo goobahaas oo ay ugu tala gashay in gabbaad laga dhigto haddii ay la kulanto weerar jawaab celina oo dhanka nukliyeerka wasiirkii hore ee difaaca dalka Mareykanka Shah Hagel ayaa qaybtii hore ee sanadka 2016 waxa uu sheegay in dalkiisu saldhigyo military ka sameeyeen gobolka Alaska si loo weeraro oo looga duqeeyo Kuuriyada Waqooyi laakiin Mareykanku waxay weli u muuqdaan kuwa ku jira horumarinta ciidamadooda si ay u gaarsiiyaan heer ay ka guuleysan karaan dagaal nukliyeer oo ay la galaan Kuuriyada Waqooyi bishii Abriil 2016 generaalka Mareykanka ee Dixon Browser waxa uu ku sifeeyay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi nin axmaq ah oo aan is saamaxaad shaqo ku lahayn kana si adag badan aabihi xogo iyo macluumaad laga diyaariyay Kuuriyada Waqooyi sanadka 2016 waxay adkeynayaan in ciidanka Kuuriyada Waqooyi ku hubaysan yihiin saanada nukliyeerka kartina u leeyihiin inay maadada uraniumka ee hubka loo isticmaalo ay ku sayraan ciidanka ka soo horjeeda baarayaasha caalamiga ee dabagala quwadaha military ee wadamaduna waxay isku raacsan yihiin in quwadda nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ay tahay mid si weyn loo horumariyay sanadkii 2010 ciidanka Kuuriyada Waqooyi waxay dejiyeen markabkii dagaal ee ROKS oo laga lahaa Kuuriyada Koonfureed waxaana ku dhintay 46 askari ee dushiisa saarnaa dhacdada oo ay Kuuriyada Koonfureed xilliga aamusnaan kaga jawaabtay wax ficil ah oo jawaab ahna aanay ka qaadin Kuuriyada Koonfureed waxay difaaca heshiis ee wadankeeda ay kula jiraan dalka Mareykanka oo isagu haysta 1500 oo madaxyada nukliyeerka cadadkaas oo 100 jeer ku soo laamaya tirada madaxyada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi bishii May ee sanadkii 2016 Kim Jong Un waxa uu sheegay inaanay hubka nukliyeerka isticmaalaynin ilaa ay la kulmaan weerar lagu soo qaado barnaamijka nukliyeerka ee dalkiisuna uu yahay mid lagu xaqiijinayo nabadgelyo caalami ah oo ku timaada sinaansho hubkoodana aanay adeegsanaynin ilaa ay nabaddu ka yaraato dunida mooyaane in badan oo kamid ah khubarada ku takhasusay arrimaha siyaasadda caalamiga ah waxay rumaysan yihiin in haysashada hubka nukliyeerka ee dalalka caalamka qaarkood ay yareyn karto khatarta in dagaal dhaco laga qabo waana istiraatiijiyadda halhayska looga dhigay kala bedelashada burburka la hubo oo ah mid waddan waliba ka baqayo in loogu jawaabo hubka nukliyeerka haddii uu isagu ku horeeyo oo cid ku weeraro taasina waa habdhaqankii sababay dagaalkii qabooba ee dunida oo Mareykanka iyo Ruushka midkoodna aanu dagaal hubaysan si toos ah ugala hor iman ka kale Kuuriyada Waqooyina waxay aaminsan tahay in markastoo cududooda military korodho ay ka badbaadaan duulaan lagu soo qaadi lahaa